asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha dhammaan meel kastoo joogtaan iyo si kastood ii maqlaysaanba isxisaabi intaan lagu xisaabin. xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasib. war intaan adi lagu xisaabin isxisaabi. saa la socotaan xalay ama maantay xalay waxay 1 January 2025 oo waafaqsan 1 Rajab 1446 hijriyada. asxaabta nagu xiran dhammaan waxaan ilaahay ka baryayaa inuu khayrkiisa sanadkan soo aadiyo, sharkiisana ilaahay subxaana watacaala na garab marsho. ilaahayna waxaan ka rajayn ani idinkaba sanadkan sanadkiisii waxaa laga yaabaa dad badan oo nagu xirnaay ama dad badan oo nala joogay inay aakhiro jiraan. ilaahay waxaan ka baryay subxaana watacaala dadkii dhintay walaalaha sanadkaas inuu ilaahay u naxariisto, jannatulfirdowsna geeyo. inta nool ee xanuunsanna ilaahay caafiyo. intaas kadib daawadoo doonaysaa in sanadkan 2004 halkaas aada taagnaata oo halkii aada 2024 taagneed inaad sii taagnaata, mise waxaad doonaysaa in wax ka duwan aada la timaado ama qorsho ka duwan. qorshahaaga sanadka 2025 ma diyaarsatay? waxaan u jeedaa diinteenna waxay tiri ummad kasta waxaa u yeelay sharcatan wa minhaajan, sharaaco la raaca iyo manhaj xayaa la raaco. qorshahaadii sanadka ma diyaarsatay? tusaale sanadkan waxaa rabaa luuqadda holandeeska inaa barta, tiirigana soo qaata, baabuurka leysinkiisa hela, jaamacad hebel inaan ka baxa, qur-aanka ilaahay subxaana watacaala inaa xifdiya. qorsho noocaas ma degsatay? qorsho kale ma degsatay qaabkaad caruurtaadii ula dhaqmi lahayd? waxaa laga yaabaa caruur yaryara ii joogta, waa igu badan yihiin, sidan diinta ilaahay subxaana watacaala uu bari lahay, saa macallin fiican ugu heli lahay. ama waxaa laga yaabaa caruur soo qaangaartay inay ila joogaan oo 12, 13, 14 ay sii marayaan. qaabkee ula dhaqmayaa? ma sidii caruurtii waagi yaryaraayeen oo 5 sano jireen ula dhaqmaa, mise qaab ka duwan? istaraatiijiya noocee qaataa? ilmahaygaas yar ama gabadhaydaas yar ee 14 jirta ama 15 gashay waxba igama maqasho, ima dhegaysato, awaamirta guriga ma qaadato, waxay doontay suubisaa. qaabkee ula macaamilaya? hay-adaha dowladda maan wacaya oo leeyahay yoonqa sooraq maan wacaya, ya kina biskheerin maan la xiriirayaa? maxaan samaynayaa? cunugtii ima dhegaysanaysa, gurigay joogtaa. qorshooyinka noocaas maxaa kuu degsan oo ah ilmahan ku maqli waayo qaabkeed ula macaamilaysaa? awalan intaan mawduucaas ka bixin, qof kastoo walaalo caruurta ku dhiban talooyinka ugu fiican aan ku siinaya, kow dadka akhayaarta ah ee communitiyada ka shaqeeya ama dowladda af soomaaliga si fiican u yaqaano, diintooda loogu kalsoon yahay, dadkaas ugu yeer ha la fadhiistaan ilmahaaga yar. kadibna dad lagu kalsoon yahay ha kuu waaniyaan intaada hay-adaha dowliga aadin. waa iga talo. haddii hay-ad dowlad aado oo luuqadaad si fiican u aqoonin, wax ka badan baa ka imaanaya. waa talooyinka aan ku siinaya ayay ka mid tahay. qorshahaaga marka sanadka 2005 ma diyaarsatay, mise weli riwaayadii qiyaaliga ahayd ayaad ku jirtaa? riwaayadii qiyaalida waxaa u jeedaa waa cuntaa, waa cabtaa, shaqooyinkaada iska aadaa ama gurigaada iska joogtaa, ilmahaad iskool u dirsataa, kadibna facebook iyo tictokaa fadhiisataa, saacado badan baa ku jirtaa, guruubyadaas tictok laga sheergareeyaad dhex boodaa, waqtigaadaad ku dhumisaa, guruubyada whatsapp maalaayacnigaada waqtigaada ku lumisaa. sidaasaad doonaysaa marka inaad ku noolaato, sidaasaad doonaysaa inaad aabbo ku noqoto ama hooyo ku noqoto, sidaasaad doonaysaa inaad mustaqbal ummadeed ku bedasho. ma qorshahaada ma sidaasaa? mise si ka dawanaad doonaysaa oo inaad isbaraarujsatana alla ilahay qaflaan ku jirayo meel cidlaan fadhiya sidaan si anfacaysa maahiine si ka duwan waa inaad sameeyo. 2020 meeshaad taagneed miyaad doonaysaa weli inaad taagnaato? 2025 la marayo 5 sano ka soo wareegtay, waad iska noqoto qof ma gudba ah meeshiisa fadhiya, mise qorshe kalaa kuu degsan walaalka qaaliga ama walaasha qaaliga ah? koley waa baraarujin un. waxaan rajaynayaa inuu fikirkaaga dib usu xisaabiso. sababtaasoo usoo qaatay xaasabuu anfusakum, naftaada xisaabi, miisaan isa saar qabla an tuxaasib, intaan loo xisaabin. adduunyada isku xisaab intaan aakhiro gaarin.
adduunyada isku xisaab isla xisaabtan intaasoo dhalinyarada tahay waqtiga kaa dhic inood gaboobin isla adduunyada iskula xisaab oo fursadda ka faa'iideyso oo dadka wax yaqaana ka faa'iideyso oo ummadda wax taqaana ka faa'iideyso oo isdaba qabo bise waxaan filayaa inaad garanayso dabaaldega oon u jeedo sanadka cusub in loo dabaaldego diinta waxay ka tiri war ma haysaa saa la socotaba waxaad maqashaa sanadka habeenkii london habeenkii baris habeenkii australia habeenkii toronto habeenkii minneapolis oo dadkoo dhan bannaanka usoo baxaan baaruudda lasoo iibsado baaruudda la daaro waxaan filayaa inaad garanayso dabaaldegad noocaas diinteena maxay ka qabtaa wixii fariinaa commentiska igala warag adigoo mahadsan